sanadkii tobanaad ayaa maanta dunida laga xusayaa maalinta caalamiga ee oofareenka ama qaarjeexa dadka qaarna u yaqaanaan kolb-ario. oofareenka waa mid ka mid ah cudurrada ugu badan ee sababa dhimashada carruurta ka yar 5 sano ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya. cudurkan ay dhaqaatiirtu ku sheegeen in laga hortagi karo lana daaweyn karo waxaana la ildaran 155 milyan oo carruur ah kuwa oo da'doodu ka hooseyso 5 sano. sanad kasta waxaa u dhinta baa leeyahay 1 milyan iyo bar carruur ah kuwa oo da'doodu ka hooseyso 5 sano. wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta Muqdisho ku qabatay xuska maalinta caalamiga ee oofareenka ama kolb-ariyada. mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadka ayaa ka qayb galay munaasabadaasi waxaana laga hadlay muhiimadda maalintan iyadoona madasha laga qiray in bulshada Soomaaliyeed ay u baahan tahay wacyigelin la xiriirta khatarta cudurkan ee dhallaanka Soomaaliyeed. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa ka sheekayay waxa laga qaban karo si looga hortago cudurkan qaarjeexa oo ay carruur badan u dhintaan sanad kasta. waxa aan hayno hadeertan ku saabsan dhimashada iyo cudurka carruurta ku dhacaya kuwa kale waa ka dhib badan yahay. cunuga carruurtana ma ahan qof sugi kara sida qofka weyn oo kale isbitaal hebel ha loo diro iyo meel hebel laga soo qaaday meel hebel ha la geeyo. su-aashu waxay tahay marka maxaa anagu hadda haysanaa maxaanan haysan maxaan qaban karnaa? hadda sida hore loogu sheegay in cunuga nafaqadiisa la hagaajiyo oo ugu horeyso nuujintu waa wax la qaban karo. cunuga hygiene-kiisa in la hagaajiyo waa wax la qaban karo. talaalka in la geeyo cunuga waa wax la qaban karo. su-aasha waxay tahay maxaa diidan? pneumococcal vaccine-ka waa ognahay xoogaa nimanka dhowr jeer baan kala hadalnay hay-adaha talaalka keena laba arrin bay ku cudur daarteen waxay yidhahdeen kuwii kale lacagta aan bixinaynay baan kala gaari laano lacagtii aan nagu badatay. pneumococcal vaccine-ka iyo meningococcal vaccine-ka labaduba talaalo qaaliya ku sheegeen saas daraaddeed dhaqaale uma hayaan hadda waqtigan xaadirka ah. maxamed siciid cabdullaahi wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ayaa dhankiisa ka hadlay xuska maalinta caalamiga ah ee qaarjeexa. annaga haddaana wasaaradda caafimaadka hawsha noo taalla waxay tahay in shuruucdii loo baahnaa aan u dejinno kadibna qof walboo dee mihnadani caafimaad u doortay inuu ka shaqeeyo inaan kula xisaabtanno. taasina waxay imaan kartaa keliya markaan qofkii aan shuruucda aan u hayo kadib markaan qabtana aan meel aan la hiigsado mise la tiigsado aan hayo kadibna la xukumi karo. haddii kale micno ma yeelanayso. anigu haddaan 12 dhakhtar maantadan maxkamad intaan soo saaro la xiro mise farmasistayaal oo aan aqoonin mise mid aan mihnadaba ku jirin ee sheeganaya mihnadley inuu yahay ha noqdo mid dad qaliimo sameeya mise ha noqdaan dad dhaqaatiir ah waxa kan oo dhan way dhamaanayaan. taas micnaheedu maxay tahay marka? waxa anagana looga baahan yahay waxay tahay in dowladnimada aan taageerno sidaan institutionadan aan ku soo celin lahayn oo institutionka caafimaadkana uu yahay meesha dowladnimada inay ka muuqato loo baahan yahay. runtii waa adeeg bulsho waa dhibaatada badinkeed meesha ay taalo wadankan meesha uu la dhutinaayana waxa weeyaan waa adeegan maxaan raday bulsho. Saleebaan Xaaji Axmed Raagi, Somali Cable, Muqdisho.